soo xasuustaa sheeko qosol iyo xiiso badan oo la yiraahdo magorado ma garanaysaan sheekadas weli cid ugu sheekeeyay jirta magorado waa sheeko qosol badan waxay ka turjumaysaa ama ay muujinaysaa bararka qaar isfaham waaga kala dhaxgali kara dad isku dal ah isku luqad ah oo haddana isku wanaagsan sheekadu waxay ahayd nin reer xamara ayaa waxa uu safray bari magaalada Baydhabo markuu magaalada tagay luqadana si fiican uma garanayo ninka afmaymayga cabasri abtiyaashi marka wuxuu sameeyay ninka odaga ahaa wuxuu siiyay niyahow meeshaan aad ka shaqaysatay subaxdii koowaad asoo shaqo tagay wuxuu soo maray magaalada waxa uu arkay shirkad aad u weyn oo ma garanaysaa shaqaale fara badan ay ka shaqeeyaan uu damcay shirkadaas inuu shaqo u gudbisto ka dalbado qof meesha jooga marka wuxuu ku yiri warniyow shirkadan weyn ka badan yaa iska leh saasa loo eego ka sanad magorado saaxiibka wuxuu nin magorado la iska leh shirkada marka magorado macnaheedu waxa way ma aqaan mogtaa uu soo baxay waxyar markuu socdo gaari kala xiran oo arkadan aad u qurux badan way cajabisay nina wuxuu yiri maxaa ka qalda gaari oo fiirnaa rasuul iska leh magorado wallahi warninka shirkada laha gaariga nabadleh way cajabisay markale wuu soo socday beer weyn qurux badan arkay islaan meesha rasuul beerta iska qurux badan magorado way dhaaday show wuxuu magorado ninka laho magaalada waa iska subaxda markii ninkii uu soo shaqeeyay moogtay ala sidii soo baxay asigoo rabay in uu shaqo weydiisto oo socdo waxa ka hor imaaday iyadoo meedlo moogtay uu naxay subxaanallah xaafadana laga dhintay intaasoo dariskii iyo qof ay adqaanid uu yahay weydiiyay marka qof kamid ah dadkii meedka wada wuxuu ku yiri war ninka meedka sii wadaya waay magorado walla inna lillahi wa inna wixii hanti wada وقدت